madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa guryahaanu ku jiro isagaa noo dhisay biilkana gacantuu noogu hayay cabdi maalig la xidhiyo ilaahay waaga inaana kadab naga degina de madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad ninka noo soo dayso magacaygu waa cabdillah aadan dhegasoog waxaan ka codsanay madaxweynaha somaliland iyo xukuumaddiisa maca booliska inaad soo daysaan cabdimaalig socdoon gurigaa noo sameeyaan ogeer hoostii fadhiya saasaan ka codsanaya inay iska cafidaan ilaahay nala qabtay isagoo berraxa inoo yimaado isagoo sidiisi gaa baabuurka u wata waanu baktiyaynaa intii waxba maanu helin saasaanu u eegaynaa ilaahay waxaanu u barinay wayna inoo soo daaye cabdimaalig noo soo daaye waanu baktiyaynaa in waxna siin mayso isagu baanu sidaa weedayna intaan malihi anigu ma socdo ma dhaqaaqo kaa ciryaankaabaan la mid oo saasaan meesha u fadhiya noo soo daaye oo noo keenay ilaaha weyninaha idinla qabtay noo soo daaye noo soo daaye walaalayaal noo soo daaye madaxweynaha siilaayo taliyaha noo soo daaye isagaanu cid ka dhiganay noo anfax ahaayo waxna siinaya noo soo daaye qalbigay waxaan ka bari in ilaahay oo isagoo nabad ah oo wanaagsan oo xorriyada noo yimaada oo wuxuu noo qabti jiray baa noo qabta oo siduu noogu gargaari jiray noogu gargaara oo siduu noo caawin jiray noo caawiya oo sidii wanaagsanaydu noola dhaqmaa oo sidii wax noogu keeni jiray wax noogu keenaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo dowladda waxaan ka codsay cabdimaalig muuse cabdoon oo kaalmeeyey ururka kaalmee kuwan ku kaalmeeyey ummadda baahan aan ka mid ahay aniga ayaa nuur axmeda waxaan ka doonaya inuu celiyo hadiyadiisii ay ku casideen somaliland iyo madaxweynaha somalilandba dadka baahan uu kaalmeeyey ee anigoo kaloo meydhana ama qaar igaba sii daran jiran si aananoo kaloo meydhana anigu waxaan sheegay cabdimaalig muuse cabdoon mooye walaal kale meliye aabe kale meliye inaadeer kale meliye cabdimaalig muuse cabdoon waxaan doonaynaa in xorriyadiisii loo soo celiyo gaar ahaan anigoo ayaa nuur axmeda cabdimaalig muuse cabdoon waxaanu ku codsanaynay boolis iyo madaxweynaha inay noo soo daayaan laakiin annagu waxaanu nahay dadkii masaakiinta ahaa ee dawladduna kaalmaysay ugu horreeyay dadkan la kaalmeeyey guryahana uu noo dhisay marka siday markii horeba noo kaalmeeyeen inay maantana sharaf noogu sooyso dawladda iyo booliska iyo madaxweynuhuba oo dee cabdimaalig muuse cabdoon inay noo soo daayeen oo si sharafti leh noogu soo daayaan baanu ka codsanayna anagu markii hore waana wax allaale waxaanu ummadana ogeynay sidaanu ahayn waa qof wali waa uu garanayaa waa kii buulkaa yar iyo buul halkaan aanu ku jirin marka si sharafna noo gal horta soomaalidu noo gasho waxbayna siiyeen gacantana wuu noogu hayay isagaa noo dhisay oo dee wixii ayna siiyeen xoolihii inala siiyey ayuu nooga dhisay iminkana lacagtii wuu noo hayay oo si sharaf labuu noogu hayay iminkana waxaanu doonaynaa sidii sharafka lahayd ina loogu soo daayo wuu qadami karaa oo si aan waxba ahayn buu qadamaa hadduu dee gashay isagu dee haw dambi dhaafaan hadduu ku gashay ilaa anagu wuxuu isku sameeye garan mayno hadduu ku